harkiisa lagu nastaa halkaasa 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 lagu degaa dhulkaaga 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 lagu ogaa harkiisa lagu nastaa halkaasa 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 lagu degaa hamun hamun looguma dhintee hoobantiisad cunta 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 hoobantiisad cunta dadkaagaad yeeshataa ciidadaad haybsataa dadkaagaad yeeshataa ciidadaad haybsataa haybsataa ciidada haysataa hamun hamun looguma dhintee hoobantiisad cunta 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 hoobantiisad cunta dadkaagaad yeeshataa ciidadaad haybsataa dadkaagaad yeeshataa ciidadaad haybsataa haysataa haybsataa ciidada haysataa hawkar iyo maha maaha koofarsiyo lama degaan habasiya boodhaho carradu hoostay martaa waxay wataa caagaan hawkar iyo maha maaha koofarsiyo lama degaan habasiya boodhaho carradu hoostay martaa waxay wataa caagaan bulshadu waa habar wadaag hilbiyo hilbiyo dhiig wada dhasho nimina ku midoobayo hadaf bay wada qabaan nimina ku midoobayo hadaf bay wada qabaan habeenada kiile way ayaa madashana dhammaanteen iyagoo muslimiina maaragtay isku keenay nimcadaa maaragtay ilaahay baan ku shukreynaa dhammaan maanta waa kumalaya waxa meesha loogu yimiday abiib xasan libaax caaqilka beesha jaafar maaragtay soo dhigtay soo dooratay taasoo maaragtay salaadiinta iyo carruurta markaa laga soo qayb galay taasi waa cilaankii hore waxaan salaamayaa markaa walaalayaal culummada salaadiinta suldaanada caaqilada culummada maaragtay guddoomiyeyaasha madaxda dowladda salaadiinta dhammaan gobollada somalilan ee ka koobanta ay ka wada yimid dhammaantood waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saasoo kale waxaan salaamayaa dadka kale ee xafladda ka soo qayb galay sida maaragtay haweenka hooyooyinka hablaha dhammaantood maaragtay iyagana waxaan leeyahay saasoo kale salaantaasoo kale ayaan ku salaamayaa waxa weeye markaa walaalayaal waxaan leenahay caaqilkii noogu horreeyey somaliland laga saaran weyne wixii noogu xiga waa suldaanadii kaloo soo wadno waa kii ugu horreeyey waxaan ugu mahadnaqaynaa maarta walaalayaal beesha maartay somaliland sida ay nooga soo qayb galeen ay noo soo dhaweeyeen oo maaragtay madax iyo midamidna aanay nooga harin culummadii odayaashii dhammaan ay nooga soo qayb galeen baa maarta waxaan qiimayn kara maaha wax laakiin taariikhda loo gelaya weeye sida ay yeeleen wax taariikhda loo gelaya weeye waxaan iloobi karaynana ma aha wax maskaxdayada ka weyn bay soo dhigeen insha allah anaguna waxaan doonaynaa beeshu inay islaam noqoto oo wadaalahood ay garabka shahiid iyo hoob ay meeltu ka gasho caaqilka aan dooranaynaa waxa weeyaan caaqil dhaqameed weeyaan caaqil siyaasadeed baa markaa weyn caaqil dhaqameed weeyaan saa darteed caaqiladeenii hore ee somaliland marka hore ay ku soo biirugargaraya ku barakaada allah inooga dhigo marka waxa weeye insha allah intaasaan kusoo qaadanayaa waqtigu ay naga qaaban السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. salaadiinta iyo boqorrada qaranka Soomaaliland chiefafka iyo uqaasha qaranka Soomaaliland culimada
qiimaha badan qarankan ku leh ee qaranka Soomaaliland aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta qaranka Soomaaliland haweenka sharafta leh ee qaranka Soomaaliland abwaaniinta iyo fanaaniinta qaranka Soomaaliland bahda saxaafadda ama media qaranka Soomaaliland ciidamada qaranka ee qaranka Soomaaliland barasaabka ama gobolka Maroodijeex xogayaha gobolka Maroodijeex iyo barasaabka iyo ciidamada qaranka dhammaantood ee Soomaaliland inta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلام كبعدي وحسيقا سلام يا شيخ عبد الله الجوهر وضيقي قناة سوماليلاند وكم يرفو كيما قبل كي كسوق لحالة مساكا قبل كاوضل أساقنا سيقانا وضيقي الشيخي سيقانا سلام يا وحانا لي هاي إلى هاي شرف يرئيسي إلى هاي أقصيو انت أصويك السلام waxaan doonayaa intaan xalfadda inoo furinaa laba kelmadood oo baldadka meesha fadhiya inaynu sheegno waxay xoolaha waa xeer ku kale taama hantida lama xeer ku kale beesha shaarso bali bulshadii Soomaaliland sida sheegan si qiimo badan ku tiri sida xeerka inoo galaa oo inuu hadhow ku xisaabtano ayaan doonayaa sawir ka bixiyo ilaa maanta marxaatiga jooga hadii gabay makaan ka dareemo دول كردين لكن كان مخاطب يلي هالكا واحد فديا قبل كيبوربي أو شيخ يسرادين تهجامية واحد فديا قبل كسلل أو سرادين يشيخ هجامية واحد فديا قبل كي سناق قبل ك معبرهم قبل كبربرة قبل كأول وينه قبل كهذا محن بوهون قبل كي حيسمو قبل كي مروجه قبل كحول هو تأنتها صور نبويين قبل كجبيل وقبل كوبلانا هو تأنتها صور قبل والسمان أفريقيا طبعا كي قبل السمان هو فردا فالشاب بنحنا شابسة بروح عندي شيءنا واللي قال أنتها صور كلا كم يسوي دقيقة واللوكل إن أنتها صور ما يكسر دقيقة واللي بقى أنتها صور كلا ما يكسر دقيقة يصير عمل يحضر سودان كسوق يقلشي لكن عامل انت اصلا سوق بشمال دكتور وعذاب قبل كمرود الشيخ وقاشيسي وصف كان بكين عالي كحقي وسومال لا تكوبنا وافنيا هل كان وقاشي السلاطين دي قبل ما يوفنيا قبل السومال لا حتى جالسوا ليه جالسوا Soomaaliland meel kasta ay joogto ama bari ha joogto ama galbeed ha joogto ama waqooyi ha joogto ama halka joogtay way dhamaystiranto way yimaadeen waxay raalli ka yihiin caaqilka beesha jaarso ee Soomaaliland ay la doortaan inta waxaan kaga baxayaa dhaqan wixii saarayna shaqo ka bixiyo salaadiinta iyo boqorada iyo gaasada iyo jiifafka iyo uqaadu inaan ereygaas u sarifo ayay xil saareen kaas waa ereygiisa u taaysan waxaan ku soo gabagabeynayaa hal erey oo qoro caadilka ilaahay wuxuu uga baryaynaa inuu ka noqdo dalkiisa ummadiisa waxa ilaahay ka dhigo caaqilku waa nabadgelyo caaqilku waa oday caaqilku waa ummaddu nabadgelyo ka shaqeeya waxaan idin leeyahay beesha jaarsana waxaan leeyahay idinkuna caaqilka saa u keentan loo shaqeeyo caaqilkana waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay lama ka aqbalo qori ma sito madax dhaqameedkoo dhanna waa caynka annagu qori ma sidano cumaamadaanu sidanaa ummadaanu oday u nahay innaga inteena ka soo qayb gashay caaqilka waxaa ilaahay uga barayaa kuwa ducadooda la aqbalana ilaahay naga dhigo kuwa inkaartooda ilaahay aqbalana ilaahay ka dhigo ilaa qori ma sidane kayna duqeeyayna qaqajeeya ee kolba dhinac naga soo gala
naqaqajeeyo ilaahay waxaanu weydiisanahay kaarta iyadu inay dee ku dhacdo ila qori masala wax kaloo iska celina ma jirteen diwaan aamin dhaha ka ducadiisa ilaahay aqbala ilaahay naga dhigo awood intaasi oo lahana intaana ilaahay baynu weydiisanayna awood kale aynu haynaa ma jirto xiri mayno dili mayno caayi mayno kaalmagta ka bixisaabaa ku caaya kaalmagta ka bixisaabaa ku dilaya kaalmagta ka bixisaabaa miidiyaha u tagayo ku soo caaya kaa furataabaa ku soo caaya laakiin waxaanu leenahay ilaahay ducada iyadana aqbal habaarkaygana intaasuu baynu nagu leenahay ama suldaan ha noqdo ama caaqil ha noqdo ama ugaas ha noqdo ama madax dhaqameedkoo dhan baan ka hadlaya kaana intaasaan kaga baxayaa beesha jaarso waa beel weyn oo somalilan iyo qarankaba wax weyn ku leh oo halgankii ka soo qayb qaadatay oo odaynimada ka soo qayb qaadatay oo dhaqaalaha ka soo qayb qaadatay oo qaranka wax weyn ku leh shirku waa inoo furan yahay xalfaddu way inoo furan tahay salaadiin suldaan ismaaciil suldaan cabdiraxmaan sheekh maxamed oo suldaan wada garanaysaan oo qarankan iyo ummadda sharaf ku leh boqor raabi yuusuf cabdilaahi boqor faysal oo ka yimi habeen hore ka soo galay ceerigaabo oo u yimi inuu beesha jaarso kala qayb gala caleemasaadkeena isagoo ceerigaabo ka yimi oo xalay amaalbeer ka geeyimay habeen hore oo nidha halkaa inta beesha uskuenagaada halkaa huleelkaa ku yeela jir oo noqon doona isaguna ceerigaabo ku macsuumi doona caaqilka iyo suldaan ismaaciil asna gabiila iyo hargeysaba ku macsuumi doona waxaan odhan lahaa iyo boqor cabdilaahi boqor yuusuf cali boqor raabi yuusuf cabdilaahi oo dee boqorkii oo garanaysaan oo isaguna hargeysa oo afkii garxajiis iyo afkii boqornadaba ku hogaaminaya waxaan leeyahay iyaguna ha u duumeen caaqilkii ha calala saareen anna furitaankaan yeeshay xalfadina saasay noogu furan tahay allah ha idin barakeeyo dad iyo dunyaba wasalaam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حفلة وقفتي على مساك عاطفة بيش الجارسو أبي حسن الجلاح مانتا أي مدي سومالي لان مدحدي مثيل يسيء جوغان عنكان هذه أربع مقابلة يا رمتي وحكون ورمى يومتي ورالي يوسف الحين محمد قول المليحة لكن هذا الحوار إلى أخوه وحوي على مسار عاقل الله على مساري وحي كمت هاي أمانويك أي كمت هاي وحي كمت هاي أمانة إلهي سبحانه وتعالى أمضى وصارة كمت هاي آيات الشيخ وآخرية الشيخ يوسف عبدي وحي هاي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان تكاليفta sharciga ah ee ilaahay buuraha u bandhigay ee uu yiri maxay ahay ilaahay samaawaadka u bandhigay ee arlada u bandhigay ee uu yiri waxaan doonayaa takaaliifta sharciga ah in la saaro waxay yiraahdeen qaadi kari mayna ilaahay annagu takaaliifta kama soo bixi karna ilaahay horana ra'yiga iyagu waa nugu dhiibanay bay yiraahdeen markii samaawaadka iyo arlada cad abuurtay ee atiri itiya dawcan aw karhan qaalata atayna daa'iciin markii horeysay baabaan u nidhi cirka dhulka dayaca qorraxda xidigaha hawada amarkaaga waan u hoggaansanay sanduul lagu yahay qasab lagu yahay marka annaga inta loogu daabay ilaahay oo tii hore ilaahay ku daayay sidaasay qorraxdu ugu socotaa sidii ilaahay ugu talagalay dayacu ugu socdaa dhulka ugu socdaa wax walba ugu socdaa amaanadii caynkaas ilaahay u bandhigay waxa qaaday insaanka ayaa qaaday oo ilaahay anaga qaaday oo ka soo baxaya horta amaanadaas takaaliifta sharciga waxa kamid ah مسؤولية أمضى هجامين كذا أمانة ناس سماوات كلهم بندقة أي كم تاي عقله وحنا نود عيننا إنه إلهي حكاسي وافجيه وكسر أنا وحنا من بيش الجارسو يعني عاد وقوم وقول مشايخ إذا كنت عن كآخر سنة هو وين أفر الشيخ أو مشايخ إذا كمله أفر طبعا جارسة هاي أفر طبعا سيدا دراجي بانالو قاعد سيجارة عن بيش أو هاي أما بربار كده عن تصور برباري هالنقطة أما مشايخ هالنقطة وبين وين هو بلارن
haddaan taariikhaha wax idinka sheego ummadda Somaliland ama Soomaaliya beesha jaarsa macallin bay u ahayd dadku waxa laga yaabaa inuu yiraahdo inuu macallinimada xagga inooga ahaayeen xaggee bay ahayd innagu waxaynu ahayn dad xoolo dhaqata oo noloshoodu ay tahay cad iyo caano iyo qaraab geedaha laga soo gurto shalaytaan soo gaarnay odayaashii awowyaalka ayaa ahaa oo nooga sheekeeya hadhuurku markii ugu horreysay u yimiday waxa la isku qabtay sida uu yahay baa lagu cunaayo biyaha lagu kakabadaa iyo ma ahayn dherigaa lagu ridaayo kolkuu yar yaayaco noqda iyaa la cunaa arrintaas waa xaqiiqa weeye odayaashii aan ka soo gaarnay ama awooy hanoo noqdaan ama abayaasha ay noqdaan annaga naftayadaa soo gaarnay kuway hadhuurka kolka sidaa loo soo dhigo anigu sidaan ku cunayaa yidhaahdo iska jimloo biyaha ku darsada beesha jaarso waa beeshii inoogu horreysay ee tiri horta sidaasaa loo beeraa oo sidaasaa looga shaqaystaa waxay ku dareen karsiintiisii bay ku dareen oo yidhaahdeen sidaasaa loo karsadaayo kaa shuura laga sameeyaa kaa karis baa laga sameeyaa kaa kimis baa laga sameeyaa kaa gacan maris baa laga sameeyaa kaa gidaar baa laga sameeyaa nooc inoogu baray arrintaasi waa arrin xaqiiqaa weeye bariisku baastada iyadu shalay bay ahayd oo intayna reewaqooyigii kolka la soo hordhigo aynu odhanayna tan aniga horta iga qaad xaggaa iga qaad waxaan aniga si kaluma iigu egyahay bariiskuna baddu inooga iman jiray inooma bixi jirin hindi iyo bakistaan ayuu ka iman jiray quudkeennu wuxuu ahaa waxaa halkaa lagu cuno buu ahaa oo 14 nooc ah waxaan malin dadka badankiisu hadhuur iyo galley buu ka yaqaanaa 14 shay bay jaarsadu beeri jireen oo ayna bareen oo aynu maanta ku difaacayno marka kolkaa marka leeyahay taa ereygaas waxaan malaynayaa waxaan uga baydhay kolley odayaasha kolkay da' joogaan dee kolla odaynimay matilaan kolla culumay matilaan waa qaybtii xagga odayadan ka galataa xagga culummada haddaan u soo noqdo xaakim cabiib xasan libaax aabbaha iyo awowgaa waan garanaya anugu waxaa lagaa rabaa cuqaashaa Somaliland maanta ee halkaan lagugu ictiraafay inaad ka mid noqoto isku aragto inaad ka mid tahay dal weyn oo ballaaran baa xaggaa ku leedahay halkanna waad ku leedahay oo waa tahay oo laguma odhanayo beertarabtee halkanna waa cid waliba labada dhinac reer waliba labada dhinac weeye beeraha Somaliland dhan walba weyihiin dhankaana weyihiin xaggana weyihiin ninka caaqilkaa waxa saaran أمانة نصب صار الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم إلهي إلى ضاعوها رسولك إلى ضاعوها محل هذا إلى النقطة توصل ومستقيمة ودين الإسلام كل كما توصل وإلى النقطة مساجد كله جماعات شنطة واختبارين إلى النقطة شنطة واختبار مساجد حافظ كله إلى الكبائر إن سجّا متحجر علماء المساجد ده كهذا ليس وعد يوجا يحكمة دولا إن عبد جيسد قضية شواوين كاسو هدية نقل كوجا يوقفت كوجا يعلمه إن عبد جيسد شيء جنا بطل يلاحظه ومخيارها بقيمة هوي لكن القيب ويتقاضى حضور ذلك عليه حضور ذلك عليه حضور ذلك عليه إن النبض قيب ويتقاضى إن النقطة إن كل ملاح النقطة لا بقى هوسط كسوقش بطانة الصوم هي بطانة الشر هو وحنا نقعد فيه بهطان لا يوحنا الله ينبيه الشرطفي لك كسوج صحاب بل هي قوة يرى إنك حاجات وحنا نقول قولي نفس قولي دم قولي إنك حاجات إلى روح كوبر ينعيل قوة فجيو كبطانة وناس أيضا فلسات نقطة وحنا بريها كميلا أيام عرين المسائل دينية الله يسقطي مركزها وحنا يجيجي كان على أنتاسي أبو الشيخ علي الجوهري إنه جاي يمني نبى صوك عيون حلو الشيخ علي الجوهري إنه جاي نين تركنا وده تركنا فوقها إنه جاي يقول الشيخ علي كتاب إلهي صاحب من نورني ما أنت وحي نوبة هنا يقول عرفتها إلى عيستا وده تركنا فوقها أطعم اللي هو إلهي يقولنا علماء يقول جرا تركنا فوقها يقول جرا قبائل يقول جرا بولدهم يقول جرا عيد والقوم يقول جرا نين تركنا فوقها يقول جرا كاين هاي كاد البالي وإلى النقطة حق شيء أو هم شيء عظيم وحق عقاش عامها لما أنت جوت عليها هاي نبتدي نسكار راينو يا راشد أنا علماء وحق كمل هاي هي جت على حق بالجريء فكرنا هاي دولة هلا عيد وهلا عيد النهضة ومن جينا أشخاص أو ما
maanta nin baa madaxa badini baa madax lagu doona laakiin astaanta dowladnimo ee nabadda ha la ilaaliyo oo ninka caaqilkii ha noqdo nin nabad ilaalinaya halku dadka waxaa jiraysaa dadka madaxda xadiidkii nabigeenu sheegay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum ولكن أخشى أن تفسد عليكم الدنيا أخشى عليكم أن تفسد الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما باهين كعبس المايين الفقر وحسين كعبس المول باشا الدنيا إلا يدين بالله كل ما يدين بالله أذكر تنتان أذكر هذا تنتان سيد ومدي وهذا أيكم العكسين والله ريال وعن عرقنا سنة والبا يا وقت والبا إن ما له أي ترتمان وين وعرقنا إنه عين مسكين قرب تاجنا بين عن نبضة وحي دنيا يبغى إلى وإنه بين عن نبضة إلى هذا الجاي إلى قضية الواحد النقطة قضية نبضين واحد النقطة إن كان الواحد النقطة سيد قضية واحد النقطة وحكى حديث قلت الماما أو عروض عيش تباه كوريا شر شيوخكم من تشبه بشبابكم وخير شبابكم من تشبه بشيوخكم قضية وحوضهم بالغين قضية إن هي السؤال الكيسية إن كان يطلع الله برسين ويقول إن صاكعية إن صاكعية قضية وحوض صلاة ينام بالغين حطوا حتى قضية السؤال الكيسية إن كان أو كان يعني يسألوا عليه وحدوا ده جسمه وحدوا والله يا والله محي والله يا كاسوا قالوا شربا دليلتنا نروح وشرب بنقول شباب فينا نيك قضية كذا قضية يعني مكانهم تقول يا كاسوا وحدوا وقميص وحده أو كوفية وحده أبيه هو يديه ويكفر حياه وحياه ما شاء الله الله ينكى ينحيه أستعفي حقه حياه ورنيه مرجع وحوي دمانتين هذين قضايا الله هذين دليلنا هاي هذين نوينا هاي تذكر عيدنا النبضة عيدنا نظرا على أيضا بيوفت قروا جامية هاي وحنقول عينيا عادل ونقول عينيا من الله خير وخير ونقول عينيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى waayahay bismillaahi haatan waxaan u yeerayaa aqoonyahan injineer xaashi cumar cige injineer soo dhawow الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصدق الله العظيم مدحنا dhaqanka Somaliland oo aan oran karo waa labeyntii ugu sareysay ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland halkan fadhida madaxda dawladda ee uu barasaabku hogaaminayo aqoonyahanka martisharafta kale mudaniya marwooyinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh xafladan qiimaha leh ee caleemasaarka cabdilaabiib xasan libaax oo ah intii aynu xaflad caleemasaar soo arkaynay intii ugu sarreysay uguna qiimaha badnayd waxaan u kacay inaan wax yar ka iftiimiyo marka la yiraahdo beelaha jaarso runtiiga ma aha inaan qabyaaladda adkaynayo ama baranayo laakiin waxa weeye habraaca taariikhda ayaa ina faraya in la ogaado ama yani aqoon loo yeesho maxaan ku dhahdaa ummadda maxaan ku dhahdaa geeskan Afrika marka laga bilaabo dalka Jamhuuriyadda Somaliland beelaha jaarso oo ka kooban 6 وقت أنا شقيني هيئة عالمية أو سميني habraaca bulshooyinka geeska Afrika ama social anthropology ayaa waxay ka bilaabmay meel la yiraahdo Gursum oo ku taala maxaan ku dhahdaa inta u dhaxaysa kilka shanaad ee Itoobiya iyo kilka Afrika markii halkaa ku kulmay 6 jaanso waxaan ugu tagay albaabka Addis Ababa hadana 6 jaanso waxaan ugu tagay darafka ugu galbeedeeya ee xiga Suudaan ee gobolka Gaddafi iyo Kasal la xiga baa hadana ugu tagay waxaan ugu tagay gobolka Hawd ama koonfur ugu xiga Itoobiya ee Mooyaale oo ay galayaan gobolka Kenya ee Marala waxaan ogaaday dadka ugu ballaaran ee ugu badan ee afka Oromada ku hadla inay asalkoodu yihiin Soomaali oo ay asalkoodu yihiin Jaarso waxaan arkay inay beelweynta Soomaaliyeed la yiraahdo qaybaha ugu mudan ee ugu ballaaran inay yihiin baan halkaa ka ogaaday waxay qayb libaax ku lahaayeen marka taariikhda aan milicsano
hogaankii islaamka taariikhda togan marka la eego ugu qiimaha badnaa geeska Afrika imaam Axmed Ibrahim Geesi Axmed Gurey waxay qayb libaax ka ahaayeen halgankii dib u xoreynta dalkan jamhuuriyadda Somaliland waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay yidhaahdaan oo goormay Soomaalidu ama Jaarso ay sidaa u ballaaratay ee ay Itoobiya oo dhan iyo geeskan Afrika jamhuuriyadda Somaliland jamhuuriyadda Djibouti Itoobiya gobolka Kenya ee NFD loo jiray markana la yiraahdo North Eastern Kenya ilaa Suudaan goormay soo ugu ballaaratay Soomaalidu waqti hore ayay ballaaratay waqti hore ayay maxaa ku radaa wuxuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya wuxuu yiri ma la sanaawi Oromo ma badna laakiin waxa badan dadka af Soomaaliga ku hadla dadka af Oromada ku hadla ee asalkooda Soomaaliyeed kuwaasi waa Jaarso weey Soomaalidu waqti hore ayay durugtay oo ay gashay geeska Afrika iyo Afrikada dhexe Afrikada galbeed iyo Afrikada waqooyi ay gashay wuxuu ii sheegay in adduunka intiisa kala wuxuu ii sheegay in aanu saaxiibna in Soomaalidu waa tan tahriibaysa meel walba maraysa marka Latin America la tago wadanka la yiraahdo Guatemala inay joogaan qoysas badan oo Soomaali ah oo Latin American oo af Soomaaliga garanaynin oo asalkoodu samarroon oo ka tagaysayna inay halkaa joogaan oo markay arkaan dad Soomaali ah ay aad soo dhaweeyaan aad yani garasowilna iyo Soomaali garanay waxa kale oo aan ogaaday marka taariikhda la baarbaaro wadanka la yiraahdo Mali caasimadiisa labaad ee Timbuktu ayaa dagaaladii ka dhacay waxa la dumiyay maqaam la dhisay qarnigii 9aad maqaamka oo aan imika dib loo dhisi karin oo qaybo badan tahay maqaamka waxa la yiraahdaa maqaamka Imaam Hussein markii aan taariikhda baaray waxaan ogaaday Imaam Hussein inuu yahay awowgii afraad ee Sheekh Saxaab Soomaalidu mar hore ayay adduunyada gashay Afrika gashay meel walba gashay Jaarso oo ah maxaa ku dhahdaa Soomaalida xuduudaha Soomaalida xuduud ka mid ah oo ka sii midar beelweynta dir waxay yihiin dadka ugu ballaaran ee gobolada Itoobiya daga Soomaaliya jamhuuriyadda Somaliland Djibouti Soomaaliya iyo Kenya wasalaam إلى الأسبوع أبي الحسن الباح وحكروا كعبي إلى المرخات كلمة بونون إنه عاقل يهي أي جارسة حلق الماطر بصوري سترين وعلى كلمة إنه أبي يهي عاقل في جارسة إسو مالله نحليه الجديدة إنت مركا كبدو هذا البدن كله الماطر وحرانه على مسار وقاطر أما اللي يسي واحد تنمو أنكحيو ومدى الرئيس ومالنا باشا تشارسو أنا نكحيو دادك waxay isku kala xigaan sida ay diinta ay isku kala dhowyihiin ama isku diyihiin xigaalka labaadna waxa weeye deegaanka annagu Jaarso marka aan ka warramayno ama taariikhdeeda ummadda reer Somaliland uga sheekaynayno Jaarso waxaanu nidhahnaa waa Jaarso Duuli Axmed baanu nahay sababtu waa maxay Jaarso waxa weeyaan sidii Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar شيخ الرئيس وشيخ السلمان شيخ البلد كلمة ما شيخ عبد الله شانس هو معلم حدي وشيخ عبد الله وحبيرسته نبرتي شانس الدين تنيدا نبرتي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم عاملك iyo beesha Jaarso ee taariikhdeeda dheer laga soo sheekeeyay iyo dadweynaha soo ajiibay ee ka kala yimid gobolada waxaan ku soo dhaweynayaa qalbi furan waxaan ku soo dhaweynayaa niyad wanaag waxaan ku soo dhaweynayaa deegaanka oo aan leeyahay hambaliyo caaqil intaa waxaan ii raaco aan salaadiinta ii dheer aniga أنا واحد عايزور في كذا بلا عدران لما تولد
هذه أنفع فرحسنا الحقيقة إلى الماضي حفلة كسوق يبدو لو على مسار يو عاقل كبيرها تابسو وكترسن بيرها درين سيدي إنجنير بشيكي يمكن تاريخ الداري بيرها تابسو هذه أنفع فرحسنا وحقروا هذه أنفع العليا شيخ البلد شيخ عبد الله شيخ علي جوهر ويسمى تاريخ في عام كسو شيكي وغير كلية وعلى هذه ووحل الغفرة ووحل الغفرة سنبلي على غيرك هي عاقل خلاص وعلمت أكثر يا سنتي دردارك في حرية دردارك في حرية وحوية وزن كيف نقول على حالة ومغلس وحي ما تبقى حي صحافة وحي كسر ونكسر وطن كله باهين بالجميع إن بالجميع لا نشتري يا مباهي تكتب على الجرية تكتب واحد إلا يفعل هذه معها أنت تحارب الجرية معها أنت تكرش الجرية معها وحيدك مباهين بالجميع مرور بالمباهي برفع المحرر ولطفه وحفرط الضرب يا ضدك إن بالجرية لا وضع عمود قبطان بالجرية يعني عندك آمين وحرق رب الدارية إن البليس والرمضان ويدخل البليس والرمضان وإن بالجرية وضع إلى الشباب أيضا يكلف صدقها حالة ما تهين كتشرنا وحي تعي وحدوته ظروفها يروحها وحدوته dhibaatooyinka waddanka ka jira waxaad ogtihiin dhaqaale xumida waxaad ogtihiin taageerayaasha ardaydeedii ku dhacday iyo carruurteedii iyo dumarkeedii iyo caarkeedii dabadaha meeraysanayay idinkoo waxaasoo dhan la socda haddii khalkhal la geliyo siyaasadeedna dhibaatadeeda yeelanaysaa waxaan ku dardaarayaa runtii ku celcelinaya in nabadgelyada si buuxda loo ilaashado dhammaanteedna waxaan runtii halkan uga mahad celinayaa maalin dhaweytaaniga baa la xidhay xarig duubiya baa la xidhay in allaala intii ka qayb qaadatay meel kasta oo ay tahay bulshada noocyadeeda kala duwan iyo dhallinyaradaba waxaan uga faa'iidaysanayaa xafladda oon hambalyo u diraya ciddii xadhiga xaqdarrada ka dhiibiday ee diiday in la xidho oo in lay soo daayo ku faraxsanay hambalya la iyaga waxaan runtii aan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga عقل وكسور ويننا ديجان كان كسور ويننا ملحتنا كسور ويننا وحنا كسور ويننا مرشدا ظفراء بدن مال كسكنو كلام ليدا شرف كذا كسور ويننا إذا كان واحد يكرمنا شرف كان يدين بتشي إسماء الدين موجسي تحكي كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدي أنا قلت لكم هذا ورسالة تقول الرجع وصوت في شيء وعملت أهلي وهم مليان يا عاقل أبي وأنت يا عقاش قولك تصور بتهرنا أنا لو قول أنا شاعري وعملنا عاقل حنبلي 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 وهاتي كمالها وأنت هو شاعري عاقلك مع سعودتي وقريتي والله معاك واحد يعني كل دولة غلط شخص واحد يقول سائل كبر ستوي كذا سائل وقريت كبر سدا مركا كنت waxaan doonaynaa inaan falaxayno caaqil wuxuu ahaa howlaha meesha saarso markii laga soo galaa runtii tiimka caaqilku uu shaacsanaa laba kiis oo ka soo galay muxuu ahaa deegaanka gobolka Murujac kiisna dilaha kiisna uu ahaa kiis kale muxuu ahaa dhaawaca labadaa kiisba caaqilku si fiican buu hawsha u galay ruuxantii koobaha وسؤال وين العاقلك عاقل وحول لنا ينبليو وحول بلن قاضينا هنا ونشقين العاقل يسمع عقاشي كلام ونشقين تشيب عاقل هذا عقاشي كوريسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بقرة يا صحافة يا هوانك يا قليرات يا مدح الدولة يا برشاقة قوكا دمان صومال لا تنشط ما تدعو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد وعن صوت ويا عاقلك سلطاني عاقل يمين حسن الإله بيجوا يروح لقولي ما يروح بقى يمشي كذا وبيجوا وخارج قادم فرطة عاقل
عاقل حسن عاقل أبيب حسن لباح وداشة حساء وعاقل شبهية صحابة على المصارعة آدم سورية صومالات الوطنية كوكب صومالات البلد والاتجاه وحنا صومالات البلد أنا قاعد على مصاري صدحية البلد فيها ما بكحنا لي سيدي الشخص صحيحها أنا استوى أنا بقرأ معي أنا أفيالي سيدي أتكلم معي وأنا إذا صدق أنا تقدر على كارك إسلام وقال بكحنا هو يقول هو كتب كذا يساقونه لقد أكيد هي مريم هي سمرهم هي إسحاق الكافر سمرة الكافر ورن سمرة تبدي دور كحنا إسلام وقال وأنا سوي إسلام وأنا هاي نيك السلطان كعادل كمحرمات كهي ميك ساوي سوي أمة المسلمة وهو نبوي هاي أو سودانية هاي أو عاقلية هاي وحاول حيوة كان الصوت قال هدوية هاي عاقل بوية هاي مش داوية وايو برداية إن بردقية فرشتايو وطيب ولدي رفض الله نيكا قال كاين ليش هو إسكندية أو إسكندية عشرية لقبطها شارية لقبطها وطيب ولدي باقوش البلدين نرجوها قبطها كل نيكا إسلامك وضيقها سلطانك عاقلك تدخل ودك ويتشوفون أي مسلمين يحتسارين هذا جوارية بس الشخص ولا يسموني ولا البس تعيدني سوي مرجية وبين سمارا أبلغ كرهي ما أنت أبلغ إسلام مسلمون على عاقلك من عاقل وسمارا أنا وصلت كابو على مسألة على مسألة ما بس تفسير كان عاقل توجه إنه على مسار الإسلام ولا تهجى وين أما كان ساسا يسوق قال ما تفسير كان ساسا شو الصومال تهاور نسيب اللي هو قال أما كون صوب حيسان أما كون يقول لنا صوب حيسان به الصومال من الكذا نيجي ساسا نيجي ساسا أما يقول يهجو أما شكوت يهجو أما الصومال يهجو نيجي تاسع نيجي تسوي الصومال يلاقي بين بعدين كبير ما نيجي تاسع وكذا ما كرو وكم كل كذا يقول ما هذا هيدور ديويان أنواع عاقلين وعنا يشتغل الرجال شيء عاقل الرجال ما يشتغل الرجال وقت الصاي أيام أبوه هاي وحنا لا عم بيو والله تاسع عم بيو من لا هاي على مسافه تلك كرامه يسوقها صومال هل يتعصوا هالشيء نبي تكاسوا ربا كرامه يعني ايش كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الرحمن الرحيم حفلة الإمام أفضل على مسارك عاقلك قدام معي وقاش ونوصل بيري عاقل أبيب حسن لباح ضدك حفلتي سيسويني وقاش لما أمر حقمتك يحول مرة قليلة هواك إذا مرة عدك الصلاة ومرتشاف فوق صوتك شيء وعنكم السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي قلتي وهذا الدوليو وعلي هذا نحو كيسي هذا علمات يا هذا بالعلامات هايبا وعلي سيدا دراجين ما دراجين يوم صور دونا وعن صور دونا على مسارك وعلي
وأنا قوان سويدين وأنكي ومهريي وروح على وزارة باشا سارسو مقالة حرقيسة عاصمة سومالي لان إن شاء الله وحنا وضعنا كي لابو انتفاعه إن مدقلية مكشغية أيوة عندنا إن شاء الله بيرو وحوالي أنقبوا هذا الشيء أو يسوي لياتيا وأن كامل بيرها بيرو الليل من الحدقمات كمجال العاصمة دهلي سكوية لطو بيرها جيس كامل معي أما دمان بطلتهم هذا الشيء وسؤال ويننا إن شاء الله ويوهم اليوم أمين عقل أمين حسن الله وهم اليوم أنت ما كان أخو قلت على مسار بيرو أيكلي كانوا خاصة على مسار يا أدي أويلا قلت يا جميل أويلا إذا حلين مكان كتير المطعم اللي جاي قال ولا اللي جاي قال عمودك بدأوا اللي جاي سصارم إلا ببخو إيه سيجوا ولا معاملوا تيجي على قطعه كذا بقى نصار يا إن شاء الله لما بين أما صدق بين صوت أفني وقتي وقت بتأكون سكبرون هاي بجا وعم على مصاريا إلى بسوق على تيران مصاريا تيران مصاريا وعم على مصاريا إن شاء الله وحنقوم بأكيد وانتفاعه وبوتيجا سومالي لان وحنا رايه ويلي هاي بوتيجا دوتكا سيد وحلي سقاف الرابع مدارنا اللي دوتكا أفضل قوة طريق الوحيو أجالي عارض يا أجالي ولي ولا صديع مكة المرمان وفتح لعلينا ديه الدوحو وأفضل يطرناك يشن يطرناك يقول الكل وفتح لها مدامنا كمامه بوتيجي سبقون متر أيولوك هكذا بقول متر نفط بوصلا والله على مسار مدح لقمتك مدح سياسات بشقاق مرها وايو سياسات باليوم بيني وحنتي لكن مدح لقمتك وضد إسلام وعلماء المترى وانت عقل المترى والنبتية المترى وعدك صوم وناك ودم المترى كثار على مسار وحنا بسناي إنه من أبو نصيب لي أنا حافظ أحمد ضيح أما نقول كهون كهلا يا فلان وعلى هالقول كان فعل المزاري تري البرتغيز عدك لو جامي تري تيجي ينتي جبا أيام فعل المزار سافر كنت أقول يا فلان السلام كان يلا يا مرتاي أنقول الهم بار هون يتم در بار هاي شهر سدال إلى هذا وحليها عاقلك عاقل واحد كسب بالتلميذ بابا واحد ودي أرجونا ما هو البكشة هذا القبيل بالغو هيسانيا ما هو البمر نبى الدين بالغو خمسة عاقل تلقى كذا يلو سمر كذا يلو لا تشي كذا يلو فبسي كذا يلو عدالة كذا يلو قوان قال شر كذا يلو كلنا يسمع بريء هره نكمل مركز البخرة أيوه شتى سال بلاد الدار مشري وحنا نشري وحنا كادونينا إن أضحوا الصوت وحنا كادونينا ضلقات وحنا كادونينا وحلال يوحي وحلو ودي تشري أيام كادونينا عقل كمان تري تسندنا هذا الكلام نقول دارين مايو وحكوا سوق بقبيلة يا عقل كي كور نقول الله كايلو عقاشة صابر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلني على حركة لحظة جالسة وكمل حركة يقول لي القوية الصومالية سلوا قولنا ما كان معي على الدولة شو يا شيخ حركة جالسة كده لكن وقت موسيقى وعليه ذكر وحاوية البعض القدر هوية حركة عادية عندنا هاي كمطة عقد هوية حركة جالسة وحالي ربو نيكو قول سوق وسلو حدي وأسوأ رميستي وريقان يقول كل شيء يسوي واحد عكار وحالي ربو إلى أخرى كقاعد يسوي دعوة هذي فنجعل كقاعد فنجعل أو فنجعل كاسي أنتوا نيك أول راعوا عشاني عمل حرف السي قبل كيف بقى كيف تقول أنتوا حاجة نروح على عصور خمس عشان وحال ربي يا أوت نيكري gabadha midii oo soo iibiya gawaha ka qaadaba haddii la hubsado inuu alaabtii reerka loo soo iibiyo midii daawo ku jirto gabadha waxaa lagu leeyahay ninkaa geedkiisa ilaa iyada gaabisee haddii laakiin uu gacanayigiisu gaarsiina mid soo iibi waayo ninkaasi ma malbanayo cali baaruud waxaan ka codsanayaa in laba qodob ugu badnaan oo dheer jaabsa ka mida inuu taabto isagoo qofka kale sii geli maadaama waqtigu waa odaygii jaabsa oo kaydii jinacsani cali baaruud alla ka dhow السلام عليكم صديقنا iyo boqorada iyo aqilada iyo odayada iyo hooyooyinka iyo dhalinyarta waa salaamantiin salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa weeyaan maanta xalfadda la joogo waa tii koobaad ee jaasade hargeysa lagu calaamado Somaliland أنا أبغى محمد أن أعطاه جارتنا أبغى كانوا عندهم ما دام أنا هاي سلطان كي جارته إدعان أحسني ما دام أنا هاي أنا جارتنا وجارتين دون إلا وجارتين دون أرسل جارتنا كمان أبغى كانوا روكلا أنا قليل إن جارتين دون وأمر حير كيبو وحير دستورية وحير دولته وعينا قطعان أي ما في دولته وعينا عاملة ويا حير كيبو واحد لو فديه لبيه طبعا بلود لو فديه لبيه طبعا هابلود أفر بلود سفالة لو فديه أفر بلود سفالة لو فديه أفر سفالة لو فديه صلاة دستور كويوية متى وحنصوف علىنا يا حدا هواك حوالي الحير قيد جديد قيد جديد واضح حوالي واحد من العمل إسنادها عرب كير وما حير كير وما مرخاتي وما إيمان وما لكن عرب كير وما وأنا مركب كورسلو من جوا حلينا هذو مدير أوتو هذو ألعاب تقدر مايو فكر راشد زمان سيدا عبيس كقارجو أنت مدير إسكابك هذا يجيك تقاطو ونكاس أنت وام مقبلي هذا هدور الميديا أوتومن وما أعتقد أنه أصميني حتى يجيز كذا قاطو أو تاني كذا يجيز يقول أنت مكمل إمامنا ما أنا حفظة أن الجنون أنه حنكني من إثيوبيا دقمة الدين حسن ما كان من أباركها سوماليلاند way salaaman tahay sharaatiinteeda odayadeeda aaqilinteeda annaguna abaalka waan celin doonaa shibaa dadkana allah ka dhigo kii dalka iyo dadka anfaca allah ka dhigo allah maartay cimrigiisa allah dheereeyo allah ishana allah ka hayo eexdana allah ka ilaaliyo aanu intaasaan kusoo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu أقول ما تنهي على البلاد إلى كرسيو وحيسها عقل اسم عقل بينه قوية لهي عقل جامع أوكي جامع وحنا ما نقيا على البلاد وكم إلى رمتي وضياشة حتى عندك وهي العلم تعصب لك
sheegay way ka tababaray waxaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan cuqaashi ama shakhsiga soo gaabiya hadalka waxaan imanka u yeelayaa caaqil baaruud intaan caaqilka u yeelin waxaan ka codsanayaa dhammaan sida looga dalbaday beesha jaarsinaysa hadalka ilaawin هذا هو يا عاقل عيسى آدم عاقل عيسى آدم بسم الله الرحمن الرحيم وحن هل كان وما هالنقيا عاقل إبراهيم حسن اللباح حبيب حسن اللباح ضمان dadka miisaanka iyo magaca iyo maamuus kale ay ka mid yihiin salaadiinta iyo culimada iyo mashaariicda iyo cuqaasha ee gobollada dhow iyo kuwa fogfog jazaakallah khayr waxyaalahay xagga taariikhda beesha beelweynka jaaso waxaa igaga filan شيخ عبد الله شيخ علي جوهر يسلطان اسماعيل وكل المداق لي حق ديغاكا وحويا آثارتا لو آثار يقفل waxa kale oo aan inta ku daraya salaadiintan isugu timid halkan wali aan ma aan xafladinta leeyahay oo lagu maamusayo caaqil waxaan leeyahay caaqilkani waa xilli godkiisii helay xilli godkiisii helay weeye waxa kale oo laga yaabaa haddii kolley malaha waxaan malaynayaa beesha waxaan u sheegayaa dee haddii aad suldaanba soo wadaan waxaan u malaynayaa dee kolley haribarday tii caaqilku noocan tahay dee ta suldaankana bal iyadana waxaan u malay kolley waa kusii talageli doontaa inkastoo moodayn wax badan ugu qaaliyeyseen caaqilka waxaa leehay ku soo dhawow gobolka maroodijeex iyo magaashiisii waxaanu leenahay ilaahay ha kula qabto salaadiinta qaarkood waxaan arkayay aad bay maxaa ku dhahday malaha ugeela fara dhuudhuubnaayay sida afhayeenka suldaanka suldaanmada dhaqanka ee muxuu ahay sultaan maxamuud yuusuf xiire oo ilaa habeenada ba caalamka ii soo sheegayay calaamsaadkiisu inuu soo socdo waxaan leeyahay hambaliyo 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 waxaan leeyahay dardaaran anigu waxaan ahay marka la yidhaahdo beelweyn haysaaq marka la yidhaah بالبدل مركز حق الهراء والله يرضى ماشي وحقيقة ولا غيره كده أنا بقول الريحة جايب هاي بيش الريحة جايب هو بيش فعوي حق العلم آثار المركز الريحة وحنا وين يا حق إثيوبيا هو مشكلة إحنا يقول لها بيش كان هاي وأنا واحد يقول الله يهدم حقه على شعب إسماعيل وحنا هاي عاقل كان ونسول وينا ونشكرنا إلى هين الجزائر فحضري وحقي وضوء وزير الآياسيو بيش تعرفنا مثل هاي عاقل كل عليه مسار لكن الله عليه مساري عاقل وين باب يشاء وطوله وين يشاء التريا وين يشاء تلقى عقبتها انت واحد لقى سويا ليه يجرب يكون كاهن جاسو يشاء واحد لقى سويا بدورك وواحد لقى سويا قرعان لحسنين هي بدونا تلف سنين هي قاعدة كنا يبقى لك شوية عاقل إذا كان لك عقبة لك شوية والسلام عليكم أنا واحد عاقل عشقان مسلم العامل وإنها شغلت عليه قلت له عبو سلامية تلت الكيسة إيش كسول الدالي وقلت دولة ينهم كان صوت عبيو واحد هذا يقول ممكن هذا كابي تكوي واحد بلد ما هلقى يستاقي رب بلد ما هلقى يستاقي نوال ما شاكي تاتا نوال ما تاتا ونوشي وطولي تاتا غزال بهمية أنا واحد قوالا تاتا رقاشة ما سيها رقاشة بلوديجيح تاتا قوالا بهمية
أما موجود وغرقني وسيو حسو أما الشيخ مفتيه حديث مقالي شيئا بلا فعل قال نفديه وجباب بها وقلبي ولما خمرو يقول ما سهل بلا موجود ما كان في حرم ما يقابل وفي وسطي يقولوه لي أما موجود وغرقني وسيو حسو أما الشيخ مفتيه حديث مقالي شيئا بلا فعل قال نفديه وجباب بها وقلبي ولما خمرو يقول ما سهل بلا موجود من كان تعامل يمنع كلامي هذه ويمنعني ويقدرون مرتدي سوى كانك من يلوقني ولا مري حرام لوسيك عليه ما يوها الكون معي هاي ولا الموجود من كان تعامل لها تنسو مستور بغالي ومن حجيها لها تنسو إلا كلاك ومراح يبا ومشحر رايو هدي كلمو عندك الشو مدلق رايو لمن كلمو كلامتيو مدني الليل ولا غماير عليك الشيا وبيو إلهي لمن كلمو كلامتيو مدني الليل بسوريا وقال كلام ولا واستايل أنا من هذه الكعبة نوروني من كلام سلام بسم الله الرحمن الرحيم إنك واحد مقعد ناس شيء أنا واحد يا سلطان محمود عاقل عبد الله عاقل حاج عاقل علمي عاقل قبيلة وعند كم شيء سلطان ماذا يمكن لك ما كتبوا عاقل مو ولا يتمام وعاقل كم شيء عاقل كم ربيعي يا سلطان كناسي وعلى عاقل وعاقل ماذا يكون ربيعي سواء عدالة علماء أنك هذا الشيء عاقلكم فيبقوا حورية مقبل بسويتي ولنقل دفاع عنك الله حتى هذا كمور قرآن نوعا سمى قاشو ويدوه ساعة لماذا حتى سيقول هذا عدالة وقلت لسيتنا دوار هدي حق لي نقول لي أنا نوقع حتى حق لي نقول هاي إني نقلته ألقى نطوص حق مرتنا وين مرد حين سمى علي الناس هذا يقول لي محمد يا يكون من الحزبين عدالة إلى يوم مريقين عدالة وأكبر من دون بيشر وحمرات الدارمين تسي هذه بيشر وميت الدارمين ورعاقل كوان حولي يمر وروا حولي إيسا وحباب دي بيسا وهي مضح وحمرات الدارمين صدح بالي على مدح نمالي الدشاء قعان قرن قدول سلسل يقروا يحصل بها مدح نمالي الدشاء حتى وحلوني من حبيبي هذا لا نروح كعيت أنا بيش تدارك السيو هذا كوكويو وادي عيسى كمية دجاجة وكنا ونيسا عامل واحد شيء عام وقفنا سلسلة ونيسا هذيك ونيسا وكتاكولينيا وكوسيلي وكتاكولينيا نيكا وضفنا ونيسا وكفر ما نروح نيسا هذيك لو كنا خاوض قادريسا وريتي ونيسا والله كمانيسا والله كمانيسا روح وكيل النساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوم بسنهاي dad qoran haddaan wiil way haraaliya haadaan waan gabagabaynaynaa goorta waxaan leeyahay wasaxsan iyo caafimaad soo taagan waxa ay ka horeeya maxamed cali biyoole suldaanka caaqilka Aisho goorta dhamaantii
xiire xuseen sidoo kale soo istaaga halkan waxaan ku bilaabayaa suugaanka kishay ninkoo maatan raalihaada waxaan salaamayaa inta hareeraha iga joogta sulaadiinta iyo caaqilada iyo ugaasyada dhammaantood aniga oo ku hadlaya afka beesha agiso duceeyihii beesha somalilanna ah igana yar qoobeen in yar hadalayo ducada qooba isku yar qooteeyadu waa ducada somalilan ama soomaaliyeed waxaa iskale waa beesha agisho qoosada marka hore marka labaad waxaan ka socdaa gobolka gebneeyooday dhaqameeyadooda noqdana waan ku ducaynaynaa waxaan ku ducaynaynaa ducadii rasuulka sheekalbeledkaa ku duceeyey annatii qaadiriyada ayaan ku ducaynayaa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة وأبواب الحاجة بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسبحان والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. حيرة حسين أبو محسن بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو أفكار الله عاقل حسين وحن سلام كسيدا على مسارك عامل كان الكوهينو أبي الحسن اللي هو حن كسيدا حملية إسوا حملية مقاطع كل المطلوبين هذا كتبه وحقود القضية بيش كاسو طريق البلد هذا مقبل كتبه لهاي بيش كاسو وروحنا إلا يسوع بالتريدي ومن ماذا يلحق عسكري مصر يسكون جميل الأمام أنا بيش كاسو ولا تروي بعدا بقول حلال يا إنما المحرج ما كان واحد مهرينا أمام قاعد شكل كاسو واحد على مساعي قبل كانكم محسوبين هذا عام قبل كانكم محسوبين كنت هذا كذا القانون كاسو وايد حتى يصير الصومال لين هاي أنا لا أقول احترام واحد ربط يا سلطان قبل كجبيلي iyo wadayaashii taasna naga xigtaystay taasooy geediga horu soo wada alla waa iska warankayga waarlada waraali buu yidhi oo saca hebel celin haddaanu gobolka togdheer nahay taasooy igid baan idin leedahay in ilaahay talada tawfiiqda iyo toobadaba waafajiyo inuu noqdo xaqsoor uu noqdo dadka dhexdhexaadiyo cidnaba aanu xintaysan walaalkii iyo ka kalaba si ugu xaqsooro wanaagsan oo tolnimo leh walaaltinimo leh diiniyan leh ayaynu ilaahay ka rajaynaa jiif aqalka inagu soo beeraa dilaala jiif aqalka waxaan ku ducaynayaa anigu waxaan ahaa cumaamadii ugu horraysay ugaaskii saare baan ugaas cabdirasaaq foosaan cali ugaaska jiifa adalka ninkii cumaamadda saare cumaamadii ugu horraysay ee madaxtinimadiisa ninkii saare baan ahaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan ilaahay ka rajaynayaa salaadiinta somalilan waxaan leeyahay aynu iska ilaalino eexashada aynu iska ilaalino kala xigtaysiga saddexda xusbi qaran jamhuuriyadda somalilan waa isku keen mid madax dhaqameedka adoona jamhuuriyadda somalilan waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa nabadgelyadana inaynu ilaashanayno ayaynu ilaahay ka rajaynaynaa nabadgelyada inaynu ilaashano ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala ilaaha caafimaadka iyo xoog iyo lixaadka bayna siibaynu ku mahadnaqanaa intii cudurranna waxaynu caafimaad ilaahay u weydiinaa caafimaad sareecana ayaynu ilaahay uga rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahu intii cudurran caafimaad sareecana sii yaa rabb alcaalamiin ilaahu intii cudurran caafimaad sareecana sii yaa rabb alcaalamiin ilaahu intii caafimaad qabna caafimaadka u siyaada yaa rabb alcaalamiin
jamhuuriyadda somalilan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa calanka sunuurta tawxiidka baa ku yaala laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah baa ku taala uma baahna ictiraaf ibni aadan kii ilaahay baa sugan haddaynu garan weyno mushkilad baa aynu haysataa inaynu caalamka dhex aragno markaa ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inaynu waxa aynu ilaahay ka rajaynayna si degdega ilaah uga helo ilaah ummadda noo safir baynu ummadda hooyo aabba nooga dhig ilaah ummadda noo safir ummadda hooyo aabba nooga dhig ilaah faras khayr qabaan ku weydiisanaa ilaah ictiraaf degdegaan kuwa baryaynaa yaa rabbalcaalamiin adiga haya yaa rabbalcaalamiin maantana waxaan leeyahay jiifka aqalka haddana tii labaad baan saaraya waa koofiidaydii درجة الله عليه وبس بعض الرئيس بالله الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شغلية كيف أخذك والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أما بعد مركب الرئيسة mahad ballaaran waxaan halkan uga celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaaha qadaray inaynu ku kulanno xafladan qiimaha badan ilaaha qadaray inay ka soo qayb gasho intaas oo qof oo isaga timiday 14 gobol ee Soomaaliland ilaaha qadaray inay ka soo qayb galaan inta ka timiday Jigjiga iyo inta Tinaasini ka timiday iyo inta meelaha kale ee fog ka timiday alxamdulilaahi rabbil aalamiin ilaaha saamahadle marka labaad aniga maanta waxa ay tahay farxad aad u ballaaran mana rabo inaan hadal badan halkan ka sii iraado laakiin waxaan u mahadnaqayaa oo labaad dawladda Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland salaadiinta ugaasiyada boqorrada caaqilada jiif caaqilada fanaaniinta dhammaan bulshooyinka Soomaaliland ee ka soo qayb gashay xafladan iyo saxaafadda oo aan anigu markii hore ka tirsanaa fanaaniinta iyo saxaafadda oo dadkayga oo si gaar ah iyaga u mahadnaqayo waxaan u mahadnaqayaa beeshayda iyada laftigeeda oo si ballaaran iyaguna uga soo qayb galay waxaan leeyahay waxaan idin hayaa abaal aniguna abaalka Soomaaliland ay gashay waan ogahay كل عيد لقى سوية Somaliland أبالك أيوة كشة أنت هو بلارن لقى سوية وانيكا نيكا باشة يا Somaliland إنه حريرية للربا أبالك جدو لقى الربا دتك ورياجية لقى الرباينا وانيكا أنا وحن بلان يدين قاضية أنت كران كيجا إن عندك يسكسو جيدو نمت جليدنا على ذكر الشقية إذا كنا يساء يقول دعية وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم